madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu wax dhigay taalada dalbirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Goobta uu wax dhigay waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in maanta oo kale 26 Juun ay qiimo weyn u leedahay dhammaan shacabka Soomaaliya. maalintii 26 Juune ee ka soo wareegtay 58 sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumeysigii Ingiriiska. waa maalintii dadka Soomaaliland ama dadkeena waqooyi ay heeryada gumeysiga iska tuureen. waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. alxamdulillah maanta waxaan joognaa 58 sano kadib waxaan taaganahay meel aan dib u weegi karno oo taariikhdeena aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno. waxa ay tahay xorriyadda, waxa ay tahay midnimada, waxa ay tahay qaranimada Soomaaliyeed. kulligeen haddaan nahay Soomaali meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad gaar ahaan annagu wuxuu naga saaran yahay waajibaad sidii aan ummadda naga dambaysa jiilka naga dambeeya aan uga tegi lahayn taariikh. waxaan ka shaqaynaynaa horumarka Soomaaliya kulligeen, waxaan ka shaqaynaynaa wanaagga Soomaaliya kulligeen. waxaan loo baahan yahay wax walba aan sameynayno inaan ka fiirino wax naga haraya oo legacy ah oo taariikh ah si naloo tixraaco kuwa naga dambeeya noo tixraacaan maanta aan joogno aan ka shaqayno wax wanaagsan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. عبد الرب سيد علي شردي ستار TV مقدشو.